waxaan markan u yeedhi doonaa xamdo yar iyaduna qodob cajiiba mid ka mid ah cudurrada bulshada la hadhay la degay la daadegay hoos u dhigay kaasi oo ah markaasi cudurka qabyaaladda abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed gabyaageeda ahaa Cabdilaahi Sultaan Timcade oo meel loo dhow ku dhashay gaar ahaan gobolka ka soo jeeday wakiil ahaa dugsi meel qabyaaladii waxay dumisay mooyaane iyadoo sidaa laynoogu sheegay oo warkeedu cad yahay baynu haddana ka hadhi laanahay xamdo yar waxaan rajayn doonaa inay si diiran oo cajiiba ay iyaduna maanta u garaaci doonto kuwa qabiilaystayaasha ah ee ilaa iyo maanta qabiilnimada hadday meel korayaanna ku korayaan hadday kaga soo degayaanna kaga soo degayaan hadday wax doonayaanna ku doonayaan hadday wax ku goosanayaanna ku goosanayaan xamdo yar baan leeyahay soo dhawow shiilka waa kuwa aan filayo inaad markaasi rajooyin ka qabtay inay soo dhawow ugu horeyn waxaan mahad iskale Allah subxaanahu wa tacaala kaasoo ogolaaday soo istaagay madashada aadka u quruxda badan mar labaad waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh dawsada adeeg mowduucayga oo ka hadlaya qabyaaladda waxaan leeyahay ugu horeyn maxay kala yihiin qabiil iyo qabyaalad qabiilku waa sumad ama baadiso ilaahay ugu talagalay inay dadku isku gartaan ujeedada ilaahay nooga dhigay qabiilo iyo qowmiyado maaha inaan isku hayno inaan shaqooyin isku siino inaan isugu faano inaan kala guursan weyno inaan isku yeesno si sababtu waxay tahay inaan isku garano oo keliya sida uu ilaahay noo sheegayna isaga agtiisa waxaa la dheerkaa isla markaana ugu wanaagsan dhankiisa midkeena uga cabsada iyo taqwada badan agtiisa haddaba adaynu isla garanay qabiilku waxa uu yahay maxay tahay qabyaaladdu waa ku dhaqanka qabiilka oo ka hirgala bulshada dhexdeeda taasi oo keenaysa in wax walba lagu helo qabiilnimo sida shaqooyinka xilalka iyo maalgelinta intaba taasi markaa waxay keenaysaa in cadaalad dhacdo oo bulshadii bar ka mid ah la ilaawo iyagoo laga dhigayo kuwan waxba ku lahayn hanaanka dowladnimada hanaanka shaqagelinta iyo saain kastoo ay xaq u lahaayeen sida dadka kale ardayda qiimaha badan leh maanta waxaan u sheegayaa in qabyaaladu dhex gashay oo isla markaana ku milantay sida dhiigga u raacday hanaanka dowladnimada ee ummadda Soomaalida meel kasta ay joogto waayo hadday wax dooranayaan qabiilnimay ku doortaan hadday ciyaartoy xulanayaan qabiilnimay ku xushaan hadday taageero noqonayaan qabiilnimay ku noqdaan hadday wada dhisanayaan qabiilnimay ku dhistaan xitaa hadduu qoraanku bug qorayo qabiilnimada kama badnaa haddaba tani waxay keenaysaa in la kala saari kari waayo qabiilnimo iyo qarannimo aanay isku qasmaan tanna waa arrin sida si iskuulka ogoloo gashay hanaanka siyaasiga ah ee ummadda bulshada ah haddaba meesha waxaa taala su-aala sidee looga bixi karaa dowladintaas waxaan uga tegayaa aqoonyahanada Somaliland iyo Soomaalida kale oo ay keenaan sidii loogu gudbi lahaa qabyaaladdan tobanka qarni taagan ee dhan walba naga waday aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum inteeda way ka weyn tahay aad bay mahadsan tahay waa dareemi karaysaan waxay idiin sheegtay hadalkaasi wuxuu ku soo ururayaa dugsi meel qabyaaladii waxay dumiso mooyaane